waxaan gudagalaynaa cashirkeena koowaad ku saabsanaa English grammarka. marka contentiga guud wuxuu ku saabsan yahay contentiga waa sida u taqaano waa content yani ama informationadii ama subtitleadii ama topicyadii oo isku soo ururi waay intaan la fidin ka hor. halkan waxaan ku haysanaa ciwaanka koowaad waxaan qaadanaynaa noun oo lagu darayo is oo lagu darayo noun kale iyadoo loo fiirinayo xilliga jumlada laga sameynayo singularka ama mid kali ah. cashirka labaad wuxuu noqon doonaa qaybta labaad cashirka labaad aan dhigna qaybta labaad nounka ayadoo lagu darayo a so is waa in singular form waaye a markaan dhahayo waa plural form hal laba iyo wixii ka badan haddana waxaan ku darayaa noun kale kadib waxaan helayaa plural ama shay jamac ah. qaybta saddexaad waxaa waaye pronoun oo ah magacyaalkii ayaa waxaan ku darayaa be waxaan ku darayaa noun. qaybta afraad contraction saliraha contraction waxaa waaye shayga lasoo gaabinayo tusaale kale cashirka isagoo faahfaahsan arki doona su'aalismo. qaybta shanaad waa negative with be negative waxaa la shayga diidmada ah ama ka hor imaan karo ama cagsi ku noqon karo be aan ku daraynaa. Then we have be plus adjective. Then 7 we have be plus a place. Place waa meeshi ama goob tusaale kale school, a house, market like that. Then after that we will have a summary. waxaan lahaynaa summary yar oo kooban oo dulmarayo toddobada ciwaan ee aan soo qaadanay. So let's start. aan ka bilaabno cashirka koobaad. tusaale marka lagu leeyahay noun markaad fiiriso ciwaanka ugu horeeya titleka 1 noun lagu yiri noun saa u naqaano afkeena Soomaaliyeed waxaa lagu dhahaa waa magaca. magac wuxuu noqon karaa magac magaalo, magac dad, qof, magac buur, bad, dhul, hawayaan. so magac waa magac ma kala qaybsami karo. waxaan ku daraynaa is anagoo u adeegsanayno is oo kala jeedno singular hal shay ah. tusaale kale Ahmed is a boy oo kala leena tusaale example ugu horeeya haddaad fiiriso marka sawirka shaashada kaga muuqdo kor waxaa ku qoran Canada is a country. jumladda ayada markaad fiiriso waa singular waa hal way hal jumla hal shay laga hadlayo waa Canada oo hal wadana is oo ah yani singular verb a country waa wadan Canada waa wadan. aada waxay u taaganta waan arki doonaa aada waxaa la yidhaha article kolley hadhow cashirka faahfaahsan gadaal dambe ku arki doonaa a iyo an iyo the halkii la yidhaha a oo u adeegsano shayga markuu singular yahay an oon u adeegsano shayga la yidhaha uncountable nounka ama shayga aanan la xisaabi karin iyo the oo ah shayga markuu yahay specific. let's go. Canada is a country. so Canada kaligeed ereyga Canada waa magac is a verb singular verb that is plus noun. Canada is a country. Canada waa country. Canada waa magaalo. so Canada is a singular noun. Canada marka waxaa waaye noun ama magac oo singular ah kali ah. is waxa waaye singular verb. is a singular verb. Country is a singular noun. dadka qaar waxay la yaabayaan jumlada koowda markay dhamaystirneed oo Canada is a country lahay a ayaa ku jirtay waa laga soo tagay a now is an article of which markii hadda jijibinayna aada kaligeed ma qaadan karno waayo aada waxaan banaanka u keeni karin waxay kamid tahay inay tahay article taasoo hadda jumlada markay tahayna aan u baahano marka hadda aan kala jibinayna ka harayso. so waan arki doonaa kolley waxay uga harayso sababta. Sydney is a city. meesha Sydneyda aan ku bedelna marka Muqdisho is a city. Muqdisho waa caasimad. so sidaan idin sheegay aada waxay u taagan tahay waan arki doonaa marka Sydney is a city. aada waa ereyga la gaduudiyey. so
A is an article. هذا محيط هو article. Then a is always used in singular noun. So أعضو حلو استعمالها noun كمركو يهي singular أما مفرد أما حل كلي ويهي. Now Brazil is a country. Peru is a country. Santiago is a city. Okay. ما كسو قد مركي أريكا أعلى أديك سنة لكن نا هذا حفيرنا a noun plus is plus another noun. A butterfly is an insect. Butterfly والي أنا بالبالستا is وحويان an insect. An is an article. So a haddaan dib ugu laabto a iyo an waxay leedahay kala adeegsado a waxaa la adeegsadaa markii la isticmaalayo ama ereyga a-da laga soo horreysiinayo uu yahay maxay ahaydey consonant 26ka alphabet Englishka wuxuu ka kooban yahay 26 shan ka mid ayaa waxaa la yidhaha consonants waa a e o u shan ka mid ah waxaa la yidhahaa vowels waa a e o u 21 soo haray ayaa yidhaha consonant. So a in front of consonant. So a waxaa la hordhigaa ereyga markuu yahay consonant. Anna waxaa la hordhigaa markuu yahay vowels ayadoo xilli walba aan la adeegsan karin oo laakiin an erey vowel ayadoo laga hormarin aan arki doono. So a and an have same meaning yani isku micnay qaadanayaan. dhibkii wuxuu yahay kali ee meesha ka bedeli karo waa ereyga consonant iyo vowel. So consonant waxaa la yidhahaa shaqalada vowelna waa shibanaha haddana khaldaneen. So a and an are always known as articles. Now let us make a sentence. jumladan sameyna marka intaan jumlada sameyna ereyaan qaadana marka a chair waa kursi. chair marka si waxay ka bilaabanaysaa a consonant. A woman or a women dadka qaar sida pronunciation sameyn karo. Then a school, a lion, a bird, a man. So markaad fiiriso ereyada C W S L B M dhammaantood ereyada ayada ah oo buluug ah waxay ka bilaabanayaan ereyga consonant-ka. So dabcan waxaa marka inoo soo baxayo singularkooda inaan a u qaadan karno a chair. haddii hadhow jamac markay gaarto a-dan waa la tuuri doonaa waa arki doonaa. Then a chair, a woman, a school, a lion, a bird, a man. So a in front of consonant. So ereyga article-ka a always wuxuu hor istaagayaa ama ka bilaabmaya ama hor soo maraya markaad adeegsanayso ama marka uu ereyga aad jumlada ku sameyn rabto ka bilaabanayo ama noun-ka ama magaca uu ka bilaabanayo c. Okay. An, let's go to an now. Article-ka a waa ka baxnay an aan fiirino an elevator. So e is a vowel. An egg, e is another vowel. An avocado, a is a vowel. An elephant, e is a vowel. An oven, o is a vowel. An ear, e is a vowel. So here ereyada marka gaduudka laga dhigay e a e o e dhammaan waxay ka mid yihiin shanta vowel. So an always waxaa lagu horumarinayaa vowel. So an in front of vowels. An elevator, an egg, an avocado, an elephant, an oven, an ear. An in front of vowels. So an always waxaa laga horumarinayaa ereyga markuu ka bilaabanayo vowel. Okay. aan ka sameyna jumlad marka jumlada isku xiran aan fiirino marka waxaan soo qabaynaa ereyga apple. ereyga
ereyga apple, ereyga apple. Apple wuxuu ka bilaabanayaa a. So maadaama a uu ka bilaabanayo, we will have a consonant an. Consonant kan qaadanayna we will have an article an. Article kan qaadanayna wuxuu yahay an. So an apple is a fruit. So fruit f ay ka bilaabanaysaa, so that's why we are taking a. Apple ay ka bilaabanaysaa a, so we will put an in front of it. So an apple is a fruit. So that sentence becomes correct. So a bear is an animal. A bear. So B is a consonant, so we will have a vowel A. So B marka maadaama uu yahay, bear maadaama uu yahay ereyga B ay ka bilaabanayso, waxaan hormarinaynaa A. An article A aan qaadanayna. Is an animal. Waxa weeyaan an animal. So animalka waxay ka bilaabanaysaa a vowel A. So that's why we take an. A rose is a flower. So kuwa marka waxaan arkaynaa inay isku jiraan vowel. Jumlada koowaad oo kale waxay isku jirtay vowel iyo consonant. Kan vowel iyo consonant sidii loo kala hormariyo. So waxaan soo hormarinay an article an, waxaan ku xijinay an article a. Kana waxaan soo hormarnay an article a, waxaan gadaal marnay an article an. So jumladan kale ee hadda u dambeysa waxay noqonaysaa inay labadaba article a ku jiraan, laakiin at the same time jumlada ay dhammaystiran tahay. A rose is a flower. Rose r is a consonant, so we take an article a. A flower f is a consonant, so we take article a like that. Okay, an assignment. Tusaale, dash school is dash building. Or practice. Adiga marka iska practice garay intaadan jawaabta helin ka hore practice ku sameey. Schoolka waa dhismo. So we will have two different answers. Dooro marka a iyo an ka dooro. Haddaad fiiriso, school waa s. S is a consonant and B is a consonant. So an boss uma banaana marka maadaama labadaba consonant ay ka bilaabanayaan. So you say a school is a building. School is a building. Dash horse is dash animal. Horse wuxuu ka bilaabanayaa H, that's a consonant. Animal wuxuu ka bilaabanayaa A, which is a vowel. So a horse is an animal. So that's what we said. Waxaan dhahnay haddii ereygu ka bilaabanayo consonant, article wuxuu noqonayaa article A. Haddii laakiin vowel uu ka bilaabanayo article an uu qaadanayaa. An insect is a bee wala kadhalika. So an ant is an insect. Ant marka shayga quraanjada arkaysa yarta, ant waxay ka bilaabanaysaa A, a vowel. So we take an article an. Is an insect. So here becomes another vowel, insect. So here you take the word an. Is an insect. Soccer is a ball. Soccer is sports. Soccer is sports. S marka waa consonant. So here becomes A. Soccer is sports. Soccer is sports. Okay, Colombia is dash. Colombia is a dash. So Colombia waxaan ognahay waa wadan. So maxaan leenahay Colombia is a country. Argentina is a country. Sao Paulo waa caasimadda Brazil haddaan khaldaneen. So is a city. Okay, let's practice. A printer is a dash.
here box waxa kugu jiro saddex jawaabood. midna waa building, midna waa machine, midna waa shape. dhismo, makiinad iyo qaab. printerka muxuu yahay marka? A printer is a machine. So waxaan inta u gelinay markan P is a consonant and M is a consonant. That's why we have an article a in front of each. A square is square. Square ka muxuu yahay? Waa shape. A square is a shape. A house is a building. So guriga waa dhismo. A house is a building. Good. A triangle is saddex geeska sambuuska. What triangle is a shape also. Triangle is a shape. Okay, let's go to now. Inta waxay inooga ekaanaya plural, singular key. Then we go to the plural. Noun plus a plus another noun. So magac ayaan ku dareynaa a oo ah plural verb. Hadda is waxay ahayd singular verb. hal ku socon hadda laban galina shay kasta laban ka dhigayna. So anagoo noun inta ka bilaabno magac verb ku dareyno oo plural ah, magac kale ku dareyno. Sidoo kale shimbirtan waa bolo. Waxaan dhahaynaa ducks are birds. So meesha marka waxaan kala anahay oo naga dhumay oo hadda ilaa hadda la isweydiin mudan, maadaama meeshan ereyga d uu ka bilaabanayo, kana b uu ka bilaabanayo, d uu ka bilowday, kana b uu ka bilowday. waa consonant. inta a ma ka hormarinaynaa, intana a ma ka hormarinaynaa. inta a ma ka hormarinaynaa waa maya. sabab plural ay maaday. plural markuu imaado a duck markay singular tahay a duck aan dhihilen waa hal xabo aan dhihilen. tusaale kale a duck waa hadday hal tahay, laakiin way badan tahay. hadday badan tahay waxaan sameynaynaa laba xabo waaye, waa ka badanaynaa. waxaan leenahay ducks, s ku darsamayso waa plural. so pluralka ereyga markuu plural ka dhasho article-ku u baxayaa ama aadi ereyga ugu horreeya ka bilaabanaya u baxayaa. so that's why here a aad u baxayso oo ducks s loogu daraayo. so we omit a, we add s. then haddii meeshaan a duck aan ka bilaabo lahayn meeshaan easy ahaan lahayd, maadaama marka hadda meeshaan la ga dhigay, you always know waxaad ogaan kartaa in meeshaan article-ka dhan aan la isticmaali karin markuu plural yahay. so any article isticmaalaya aragto waa in singular terms. so birds ku dareynaa. ducks are birds. so here we have ducks is a plural noun, waa noun plural. is a plural verb. birds waa plural noun. okay, ereyga singular markuu yahay iyo markuu plural yahay aan kala aragna marka. dog meesha waxaan ku aragnaa inuu yahay hal a ah, wax keligii waaye. so maadaama dog diida ay ka bilaabanayso consonant, waxa oona keligii yahay singular uu yahay plural uu yahay laba aysan ahayn, waxaan ku hormaraynaa article a. we say a dog. correct. then muxuu yahay marka dogan? waa xawayaan sooma? he's an animal. so animal a ay ka bilaabata waa consonant, so we'll have an article an in front of it. so there now a and an only with singular noun. so marka walba oo jumladaada ay singular tahay, ereyga nounka a iyo an uu kala qaadanaya adoo u fiirinayo ood u isticmaali karto shayga markuu ka bilaabanayo consonant iyo an ood ka bilaabay shayga markuu ka bilaabanaya vowel. okay, plural aan ka dhigna marka. dog, a dog asoo ahaa keliya hal labay soo saddex ay soo noqdeen. so waxay qoreen dogs way badan yihiin, eel badan waaye. then anti way baxaysaa maadaama ay xawayaano badan yihiin, we say animals. so dogs are animals. okay, singular haddii a dog iyo an animal uu ahaa oo la yidhi a iyo an nounka sidiisaba singularka ku qaataan, aan fiirina markaan pluralka. markii plural imaado marka nounska wuxuu ku dhamaanayaa ama wuxuu qaadanaya ereyga s, laakiin kulli maaha, qaara wax kala qaadan doono. okay, singular.
عاصمة عملان كهذا المركز a city وكلية ومقدشو كلية مقدشو is a city لكن هذي بريهن مقدشو كسمايو garowe puntland اسكو دهو are cities عندي لها so إذا وايضا حير إلى هذا لو ريبي كرو أو plural لو دي كرو isaga ma darsanto ereyada qaar oo wayda ku dhamaanay ama ya ku dhamaanay so singular a city a si uu ka bilowday waa consonant so a way hormaraysaa a country wadan okay plural kiisa fiirin marka city plural kiisa muxuu noqonayaa cities how do we develop always waxaad ka saaraysaa you omit y and add ies so wayda ka tuuraysaa ies ku daraysaa si aad ku hesho pluralkeeda ama jamceeda waa ereyada ya-da ku dhamaanayo ama wayda ku dhamaanayo country pluralkeeda muxuu noqday countries so you omit y and add ies waxaad ka tuuraysaa wayda waxaad ku daraysaa ies okay jumladii aan dhisna marka a noun and a noun laba noun aan isku qabanaynaa tusaale kale muqdisho iyo magaalo kale haddaad isku darto oodna inaad sheegto aad rabto inay yihiin magaalo ama tusaale kale Soomaaliya iyo waxaa isku dartay Djibouti waxaad ku magacaabi rabtaa inay yihiin wadamo so muqdisho ama Soomaaliya iyo Djibouti intaad isku darto laba magaalo kale plural ma samayn karaan yani s kuma dari kartid ies kuma dari kartid laakiin waxaad isticmaalaysaa conjunction ama xiriye soo taqaan so you say Italy and Greece are countries sale let's say here Somalia and Djibouti Somalia and Djibouti are countries Somalia and Djibouti waa magaalooyin marka waxaan ereygan and u qatay ama ereygan and u qaadanayo waxay tahay labada magaalo intaan isku daro noun iyo noun laba magac intaan isku daro jumlad kama samayn karo okay specifically yani khaasatan markii tahay magaalooyinka so Italy and Greece waa isku daraysaa labada kadib countries-ka ama country tusaale hadda meesha waxaan dhihi karaa Italy is a country waa singular Italy aan qaadanaya kaligeed aadan is aan ka dhigayaa country-gan a country aan ku darayaa a country way noqonay meesha ies ta so jumlad markay noqonayso ama jamac tahay ama plural tahay noun aad ku daraysaa waxaad ku daraysaa plural verb kadib another noun aad ku daraysaa si uu jumlada ku dhamaystiro okay bees and ants are bugs bees waa shinnida ants waa quraanyada ama abuurka dadka sii waqeenan are bugs waxaa la yidhaha xayawaanada yaryarka ah ee xasharaadka okay let's now practice erey inta waxaad ku haystaa singular ah labadan meel sawirada kaga muuqda ayaa la rabaa in lagu buuxiyo mid walba adoo singular u samaynayso a school is a building singular way so we have haday marka waxaan ka soo hadalnay dad xasuusato a in front of singular oo loo adeegsanaya yani a loo adeegsanaya ereyada markay singular yihiin so school was singular building was singular so that's why we take an u qaadanayna a iyo a horteeda plural maxay noqon kartaa marka aadan waa haraysaa schoolkan waxaan ku daraynaa s aadan waa haraysaa buildingkan waxaan ku daraynaa s eastan way haraysaa maxay noqonaysaa so we say schools are buildings so you add s this one you add a is بدل because plural lagu yiri so is singular verb plural markay tahay already is tas way ka guuraysaa ay noqonay plural ki meesha ka soo galay
Okay, kan u koreed arkaysu waa maroodi. We say an elephant because an elephant wuxuu ka bilaabanayaa a vowel. An elephant is an animal. Plural muxuu noqon karaa marka? Remove an. Elephant kan wax ku daraysa s. Elephants warka way badan yihiin already. Marka waxaan dhahnay is always for singular. So markay bateen halkan ay maadaama ay badan yihiin waxaan ka dhigi karaa markaas elephants is waxay noqonaysaa are anta way baxaysaa animals esa inta lagu darayaa. Elephants are animals. Elephants are animals. A swan is a bird. Bro waxay noqonaysaa swans are birds. Carrots are vegetables. Yes or no? Carrotada waxaa la yidhi waa khudaar. Yes, carrots are vegetables. So jumlada ayada ah way saxan tahay. Carrots waa plural are is a plural verb. Carrots is a plural noun. Are is a plural verb. Vegetables is a plural noun. So carrots are vegetables. So jumlada way saxan tahay. Bees is insect. Is wrong. Bees waa plural. Insectsna waa plural. So waxay u baahan yihiin plural verb. So maadaama markaan bees is la insect waxaan ka dhigaynaa bees are plural verb u baahanahay. Bees are insect. So jumladan waa wrong. Bees are insect. Okay, halkaasaan ku joojinaynaa. Tan iyo kulanti dambe waxayse leh waxaan kasii ambaqaadi doonaa hadduu ilmaha cashirka dambe pronoun ama saa u taqaanaa magac u yaal anagoo ku darayna ereyga be plus a noun. Thank you.